eedayn musuq maasuq oo aad u culus ayaa lagu eedeeyay Guddoomiyaha Hay'adda Masiibooyinka Qaran Maxamuud Macallin Cabdulle ayaa lagu eedeeyay inuu musuq maasuqay kaydadkii oo looga hortagi lahaa abaaraha. waxaa haatan dalka ka taagan abaar aad u ba'an sida biyo la'aanta iyo raashin la'aanta, waxaana ku madhay xoolihii. waxaa haatan qarka saaran dadka haba ugu darnaadaane dadka jilcan sida carruurta, waayeelada iyo dadka xanuunsan oo ku dhaqan dalka, gaar ahaan dhanka miyiga. halka aad kala socoteen waa Radio Halgan. haddii uu ku soo gaaro muuqaalkaanne sii sheer garay mahadsanid.